جامعة ألفا أي تبرق بتيلا يلا باتن حمرو كلا سعودها يدها جرسوركا سيدا بوليسكا محكمة ده شراش يحمرك أو كسعودها رمها برشدا تبرق سوى سعونا يمدلوا بالموضة يلقوا قادنا يدرس لحيدا برشدا شرعي يكون رقم كيسا وجهرنا هذا القاسي كسو شيء مامورها جودة جامعة ألفا أحمد عيسى عوالة يوعمناها تبرق سيب حين أي أو كلا سعودها جرسوركا يو شرعي غان كرو مقعيسة ليلادو سهل أحمد محمد يو جامع حراري أي دماتب واحد كورة مهمة دائرة هاي شرعية يبرش هذه سو ما أنت رن أهانتي جامعة ألفا waxa ay maanta aragtay markii ay isu yimaadeen garyaqaanada iyo booliska iyo ciidamada iyo dadka markii ay isu yimaadeen waxay arkeen in bulshadeenu ay u baahan tahay in waxna loo dhigo wacyigelin ay u noqoto in santarada magaaladuna ay inta ay mas'uulka ka yihiin inay gaarsiiyaan qaabka maanta ay وجهيان هدي دعوة تمادو هدي مشاكل يمادو قفك يسوى موادنه حق أولى إن أمان تهد لكرو أيوه كعررية هدي اللي هو لجويرية وحمودية بحر وحنية كأتجي ممودي إنه يهي قف موادنه السجب بعدينية مموديو مركا وحن أباهن هاي بالوالبا وحين قبنا laba jeer waxaan maryahan baalkan ka wadnay seminar laba cisho ah oo ku saabsanaa wacyigelinta iyo sidii aad u fahmi leedeen nidaamka sharciga ee loo maro dacwadaha ciqaabta iyo madaniga iyo sidii aad u fahmi leedeen oo ma bulshada reer Berbera ay u fahmi leed waxa basic rights ka loo yaqaan ama xuquuqaha asaasiga ah waxaynu ku jirnaa حلي أما قرني أنا نولان كرين هدانا الشرع أقول قرني أنا نولان كرين أما عن شقيسين كرين هدانا الشرع وحكاقه قبل سي جامعة ألفا يونيفرسيتي وهو وعي قلنت الشرع يو إني بلدتكم فهمان وحياواي حقوا ليهين نظامية الدعوة ما دام وقف والبمالين والبا ومحكمة دايما كرو سلقة بوليس كايما كرو dadku ay muwaadiniin isku wada mid yihiin jaamacadda Alfa soo qaban qaabisay barnaamijkan anuguna waxaan macallin kamid ah jaamacadda Alfa waxaan kamid ahaa macallimiintii casharradan bixinaysay shalay maanta waxaanu qaadanay casharro kooban oo ku saabsan xuquuqaha asaasiga ee dastuurkeenu jideeyay oo ka soo bilaabmay qodobada 22aad ilaa 73aad ee dastuurka oo si wanaagsan uga hadlayay muwaadinka xuquuqda uu ku leeyahay dalka iyo waajibaadka isaga looga baahay in dalkaaga nidaamkiisa iyo sharciyadiisa kala ogaato oo ay wax kaaga baxaan waa arrin aad u muhiim ah sidoo gudoomiye Axmed sheegay maanta marka waxaanu qaadanay 7 qodob ee xuquuqda asaasiga ah ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay gabagabadii tababarkaasi waxa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardayda tababarkaasi ka qayb qaadanaysay jaamacadda Alfa ayaa haatan waxay ka mid tahay jaamacadaha muhiimadda weyn u leh xarunta gobolka saaxil ee Berbera isla markaasina soo saarta arrimo arday barata fakala kala duwan oo ugu horeeyo caafimaadku Cabdi Salaan Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera